السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبضي داود الميل كستد عالمك كقصو قنتين halkan waa channelkeena caalamiga ah ee Galbar Waaqo oo aad alaba kala socotaan xarumaha uu ku leeyahay YouTube-ka, Twitter-ka, Facebook-ga. waa barnaamijkeennii wacdaraha dunida. barnaamijkan oo aan ugu talagalay alaaba inaan ku qaada dhigno sheekooyinka iyo waxyaalaha ku cusub dunida. maanta waxaan kaga hadli doonaa qiso ka dhacday waddanka Sacuudi Carabiya. haddaba si aad uga mid noqoto daawadayaasha qisooyinka taxanaha ee wacdaraha dunida, fadlan subscribe YouTube-keena Galbar Waaqo una sii share garee asxaabtaada kale iyagoo aan daawanin barnaamijkan si ay uga mid noqdaan daawadayaasha ku casuuman ama daawado maalin kasta barnaamijka taxanaha ee wacdaraha dunida. waadna ku mahadsan tahay. barnaamijkiina wuxuu ku bilowmayaa sida tani waa arrin ay adag tahay in uu qof kula kaco hooyadii dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Amiir Mohammed bin Salman ayaa wuxuu hooyadii ku hayaa xabsi guri, taas oo ku kala teeday in ay arkaan aabihii iyo hooyadii muddo sanad ah. telefishinka caalamiga ah ee MBC ee dalka Mareykanka ayaa dhawaan sheegay in dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Mohammed bin Salman uu hooyadii Amiirad Fahda bint Falah uu muddo ka hor istaagay in Salman bin Abdulaziz oo ah aabihii in ay arkaan. amiirka ayaa la sheegay in kala qarinta aabihii iyo hooyadii ay ka mid ahayd dadaalkii uu ugu jiray in uu yimaado fikta u sarreysa ee talada dalka Sacuudiga. waxaa kaloo ay sheegtay warbixintu in Amiir Mohammed bin Salman hooyadii in aanay waxba ka faa'iidin dadaalka uu isu dhigay in uu yahay nin dib u habeen siyaasadeed aaminsan, waliba siyaasadiisu furfuran tahay, kuna howlan yahay inuu xuquuqda dumarka siiyo. warbixintu waxaa kaloo ay sheegtay in ay caddeeyeen 14 mas-uul oo xilal ka soo qabtay waddanka Mareykanka in la helay xogo sirdoon ah oo sheegaya inuu amiirku 2 sano ka hor taagan yahay hooyadii iyo aabihii in ay arkaan. warbixintu waxay intaasi ku dartay in Mohammed bin Salman markii la weydiiyay hooyadii uu ku jawaabi jiray warar kala duwan, gaar ahaan wuxuu aabihii u sheegi jiray in ay ku maqan tahay safar caafimaad. si kastaba ha ahaatee, waxaa lagu macneeyay arrintaas in ay ka dambeyso cabsi uu ka qabo hooyadii in ay sabab u noqoto in uusan noqon dhaxal sugaha boqortooyada. ugu dambeyntiina waxaa warkaasi beenisay safaaradda boqortooyadu ay ku leedahay Washington, kuna tilmaamtay arrin waxba kama jiro. waad ku mahadsan tahay inaad ka mid noqoto daawadayaasha channelka caalamiga ah ee Galbar Waaqo. fadlan subscribe si aad ula socoto xogta maalin walba aanu soo gelin doono amaba wararka aan ugu talagalay iyo macluumaadka cusub maalin kasta. fadlan waad ku mahadsan tahay daawashadaada, siina share garee.